وأصلي وأسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا ليال noloshan adduunka ah aynu nool lahay waxyaabaha had iyo jeer ale soo food saaraya qofka aadamaha ee ku nool ka argagax gelinaya ama walwal iyo warbahaarka ku ridaya ka taabanaya ka dhaawacaya ama diintiisa ama dadnimadiisa ama hantidiisa ama ubadkiisa ama ummadiisa uu ruuxdeedii qalbigiisa ku sido oo waxyaabo aad u fara badan daartan adduunku waa daar imtixaan qofka ku nool la jarribayo oo la imtixaamayo waxyaabo badan la markinayo dabeecaddeeda ayayna ka mid tahay inaanu laba maalmood oo isxiga qofku qosline maalin hadduu qoslo maalinna uu ooyo maalin hadduu farxo maalinna uu murgo ilaahay subxaanahu wa tacaala uguma talagelin waxa weeye naciim joogta ah iyo nicmo joogta ah adduunka uguma talagelin ee daarta naciimka ah ee weliba nicmadeedu mid lagu nagaanayo oo marna aan laga maqnaanayn ay tahay waa daarul aakhira oo jannaatu naciim iyo jannaatu cadnin ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku tilmaamayo alle arrintaa isagoo ina dareensiinaya si aynu dulqaadkeeda u yeelanno ayuu wuxuu leeyahy walanabluwannakum bishayin min alkhawfi waaljuuc wanaqsin min alamwaali waalanfusi waalthamaraat wabashir saabiriin waanu idin ibtilaynaynaa oo idin imtixaamaynaa waxaanu idinku imtixaamaynaa bishayin min alkhawfi waaljuuc waa waxyaalaha ugu daran ee qofka aadamaha ah qabta wey oo ah baahi iyo baqdin labadaasaanu idinku ibtilaynaynaa buu leeyahay inaad baqdaan iyo inaad baahiyootaan qofka aadamihiihi marka uu baqdin qabo ama uu baahi qabo waxa weeye waa jarraban yahay waa imtixaaman yahay waa dayacan yahay waa baylaha weeyaan walidaalika buu nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu tilmaamayaa qofka qorraxi u soo baxdo oo reerkiisa iyo ehelkiisa la bariya isagoo labadaaba ka badqaba baahi iyo baqdin fakaannamaa xiizat lahu dunyaa bixadaafiiriha in adduunkii oo oodihiisii wato aanay waxba ka maqnayni in waxa weeye loo soo hooyey oo loo soo xareeyey mar haddaad waxa weeye reerkaagii la bariday oo waxa weeye aadan ka maqnayn oo dadkaagii iyo deegaankaagii dhex joogto haddana waxa weeye baqdinna aadan qabin baahina aadan qabin nebigu sal lla alay slam wuxuu leeyahy waa nicmo weyn weeye waa nicmo adduun weeyaan ilaahay wuxuu leeyahy waxaan idinku ibtilaynayaa baqdin iyo baahi yarayn laydinku yareeyo midhaha iyo baadka dhulka ka soo baxaya ee aad quudanaysaan ee bahaayimtii aad ku noolaydeen quudanayaan in laydinku yareeyo marmarka qaybtooda in nafta laydinku yareeyo oo qofkii aad jeclayd uu geeriyoodo qariibkaagii uu geeriyoodo ayaa lagugu ibtilaynayaa ilaahay wuxuu ku gebagabayay wabashiri saabiriin kuwa sabra ee dhabar adayg iyo dulqaad iyo dul u yeesha fitanka adduunka iyo tabaa'icda ilaahay uu qadaray inay dhacayso kuwaas u bishaaray buu leeyahay waxyaabaha noocaasi dhibaatooyinka adduunka imaanaya had ya jeeraale qofka aadamaha ah oo waxa weeye daciif ah oo hankiisu yar yahay waxa weeye waa waxyaabaha hanjabin kara waa waxyaabaha banjarin kara waa waxyaabaha weysiin kara waxa weeye dhadhanka noloshu ay leedahay waa waxyaabaha ku ridi kara qoolka quusadka iyo wixii la halmaala
laakiinse waxaa jirta walaalayaal shuclo iyo faynuus ifaya oo ilaahay subxaanahu wa tacaala qofka muslimkaa qalbigiisa uu dhigay oo lagu magacaabo iimaan oo u diidaya had iyo jeeraale waxyaabaha noocaas oo kale inuu isu dhiibo duruufaha iyo danaha kala duwan ee adduunyada soo maraya inuu isu dhiibo oo isu laalaadiyo oo uu hanjabo oo hungoobo iimaanka ayaa u diidaya wey waana wax lala yaabo oo qof kale oo aadama aan ka suroobin nabi sallallahu alayhi wasallam xadiiska saxiixa ah oo in badan aynu maqalnay culimaduna nagu dul akhriday waxaa ka mid ah inuu yidhi cajaban liamri lmu'min qofka mu'minka ahee iimaanka leh arrintiisu la yaab bay leedahay haddii xumaani ay taabato wuu ku sabrayaayo markaasaa khayr lagaga abaalinaya haddii wanaag iyo barwaaqo iyo badhaadhe uu helana ilaahay buu ku mahadinayaa markaasaa waxa weeye wanaag lagaga abaalinaya isagoo nicmaysan baa wanaag loogu daraya waxaad halkaa ka fahmaysaa qofka muslimka ahi ha danaysto ha tabaalaysnaado waxa weeye duruufta adduunku ha ka kala daadsanaato iyo ha barwaaqaysto mar walba waa laba dheefood leh qof khasaaro ma ah waa martabad gaar ah oo cidda kaliya gaadhaysaa qofka iimaanka leh ay tahay lidaalika buu nebigu sal alla alay wasalam wuxuu yidhi walaysa dalika ilaa lilmu'min arrintaas qof aan mu'min ahayn kama suurowdo inuu nolosha adduunka dhib iyo dheefba badhaadhe iyo barwaaqaba inuu ku raaxaysto oo raaxadeeda iyo dhadhankeeda inuu dareemo qof muslima qof aan ahayn kama suurowdo walaalayaal wuxuu ka sheekeeyaa sheekh la dhaho maxamed raatib bin abulisi xafidahullah wamatacahu bisixati walcaafiya nin dhisay biriijka adduunka ugu weyn buundada adduunka ugu weyn ninkii handasadeeda iyo injineerinkeeda lahaa oo gaal ah milyaneerna ah oo adduun iyo hantidii iyo xoolihii inta aadama laga siin karo waxa weeye uu ka haysan karo ka haysta wey buundadii uu dhisay ee manqabada iyo magaca iyo maamuuska u hay dusheeda intuu fuulay ayuu yidhi buundadan anigaa dhisay oo astaan ay ii tahay aqoontayda iyo ilbaxnimadayda intaasoo adduun baan haystaa oo dhaqaale iyo lacag ah oo lagu raaxaysto intaasoo magac iyo maamuus baan ku haystaa aqoonta aan gaadhay iyo waxaan aadamaha u qabtay ha yeeshee dhadhan kuma haya adduunka bartiibuu iska soo tuuray oo isdilay weeyaan bartiibuu iska soo tuuray oo isdilay waxa weeye waxaan uga soconnaa waxa weeye nolosha adduunka in dhib iyo dheefba qofka uu raaxadeeda uu dareemo waxa wataa duruufta ku xeeran keliya maaha waa shucladaa iyo faynuuska iftiimaya ee iimaanka ah ee alle uu dhigo fii qalbi man yashaau min cibaadih cidda uu doono oo addoommadiisa ka mida uu laabta u saaro weeyaan ilaahay subxaana wa tacaala iimaankeenna ha kobciyo haynoo siyaadiyo adduun iyo aakhirana waxa weeye dhibaha jira haynaga badbaadiyo murugada iyo warwarka iyo warbahaarka duruufaha adduunka ay leeyihiin walaalayaal had iyo jeeraale waa dab iyo naar waxa hurinaya ee saliidda u ahi ay macaasida iyo dunuubta iyo iimaan la'aanta uu qofku ku kacaya ay tahay aadamihii waxa daminaya ee raadkaada baabiinaya ee daawada u ahna ilaahay subxaana wa tacaala in la ateeco oo la yeelo oo loo iimaansado oo la aamino weeyaan walaalayaal murugada iyo walwalka iyo warbahaarka ay keenayaan duruufaha adduunku waa wax dhib badan oo nebigu sal alla alayh wasalam uu ilaahay ka magangeli jiray oo gelinka hore ee maalinimo iyo gelinka dambaba nebigu sal alla alay wasalam adkaartii uu ku ducaysan jiray bay ka mid ahayd allahuma innii acuudu bika min alhammi waalghammi waalxusn ilaahow murugo iyo walwal iyo warbahaar baan kaa magan galay nebigu sal alla alay wasalam uu ka ducaysan jiray waxyaabahaasoo kale waa waxyaabaha uu shaydaanku qofka ku hanjabiyo uu ku qiimo rido uu ku fashiliyo weeyaan duruufta adduunka ku qabsanaysa
wuxuu isku dayaa shaydaanku inuu murugo iyo warwar iyo warbahaar uu kugu abuuro, inuu ku hanjabiyo oo ku ixbaadiyo, inuu cajzi iyo wahsi uu kugu rido oo uu kaa gaabiyo inaad camal fasho, inaad dhaqankii qof muslima lagu yaqaanay oo tacab adduunya mid aakhiraba inuu galo inuu taa waxa weeye uu kaa hor istaago ayuu shaydaanku ku dadaalayaa wey. waa buundada uu shaydaanku kuu soo fuulayo warwarka iyo warbahaarka iyo su'aalaha badan ee duruufta adduunka ku haysata aad isku soo celcelinaysa weeyaan. ilaahay wuxuu leeyahay inama najwa min ashaytaan liyaxzuna aladiina aamanuu walaysa bidaarihim shayan ila biidni illaah. najwada iyo faqa ay dadka muslimku iyagu kala faqaan oo afka isi saarsaaraan oo ay kala shakiyaan oo kala kalsooni baxaani waa camal shaytaan oo uu rabo inuu idinku murugo geliyo idinka. murugada qofka muslimka uu shaydaanku uu gelinayo muxuu ka dheefsanayaa? wuxuu ka dheefsanayaa murugadu qofka waxa weeye caafimaadkiisa ay halis ku tahay, cibaadadiisa ay halis ku tahay, camalkiisa iyo shaqadiisa ay halis ku tahay, inuu hanjabo oo fadhiisto oo isdhiibo ay waxa weeye ay keeni kartaa wey. waxyaabaha sharcigu inoo tilmaamay ee xanuunada noocaas oo kale walaalayaal lagaga gaashaaman karo ee la iskaga gadaami karo waxaa ka mid ah in ilaahay subxaanahu wa tacaala loo toobad keeno oo ilaahay subxaanahu wa tacaala loo laabto. ilaahay wuxuu leeyahay isagoo ka sheekaynaya nabiyullaahi nuux faqultu astaghfiruu rabbakum innahu kaana ghafaara yursil as-samaa calaykum midraara wayumdidkum biamwaalin wabaniin wayajcal lakum jannaatin wayajcal lakum anhaara. war ilaahay u laabto oo u noqda oo u toobad keena, ilaahay u noqda. yursil as-samaa calaykum midraara, barakada cirku idiin soo daynaya, dhulka barakadiisu idiin soo biqlinaya oo idiin soo bixinaya, ubad iyo ooryaba waa idinku arsaaqaya ilaahay subxaanahu wa tacaala. ilaahay oo loo toobad keeno astaghfirullah la dhaho oo loo laabto nicmada adduunka iyo ta aakhiraba waa lagu helaa walaalayaal. nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam maalinkii 100 jeer wax ka badan ayuu isagoo aan dambiba lahayn waxa weeye kiisii hore iyo kiisii dambana la dhaafay ayuu ilaahay 100 jeer wax ka badan dambi dhaaf weydiisan jiray wey oo astaghfirullah u dhihi jiray. inaad ilaahay astaghfirullah aad tiraahdo ilaahay subxaanahu wa tacaala dhibaatooyinka adduunka ayuu kaaga weecinaya, wixii kugu dhacana saameyntooda iyo raad xun inay kaaga tagaan ayuu kaaga ilaalinaya walaalayaal. nabi sallallahu alayhi wasallam bal u fiirsada wuxuu yidhi man lazima al-istighfar jacala allahu lahu kulla hammin faraja wa kulla diiqin makhraja warazaqahu min haythu laa yaxtasib. qofka caado ka dhigta astaghfirullah 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 ee laazima ilaahay subxaanahu wa tacaala dhib kastoo food saarta waxa weeye waa ka faydaya. waxa weeye culays kastoo ku yimaada ilaahay jid buu uga samaynaya uu kaga baxo, meel aanu filanayna waa ka quudinaya waa ka arsaaqaya wey. istighfaarta xasan al-basri ayaa nin u yimi markaasuu wuxuu ka sheegtay oo ka cawday abaar iyo waxa weeye biyo la'aan ayuu ka cawday. markaasuu wuxuu ilaahay dambi dhaaf weydiiso. nin kale u yimi markaasuu wuxuu ka cawday ubad la'aan iyo ka cawday. markaasuu ilaahay dambi dhaaf weydiiso. mid kale u yimi markaasuu wuxuu u sheegtay oo ka cawday waxa weeye hanti la'aan iyo saboolnimo iyo baahi iyo baylahnimo ka cawday. markaasuu ilaahay dambi dhaaf weydiiso. raggii la joogay baa la hadlay oo yidhi xasan al-basri ow raggani xanuuno badan bay sheegteen iyo duruufo iyo dana badan oo kala duwan, adiguna hal daawaad u sheegtay oo astaghfirullah ah. waxay u muuqataa waxa weeye dadyo badan oo buka oo dhakhtarkuna hal daawo u wada qorayo siinayo. suuragal yani maaha. aayadan ilaahay subxaanahu wa tacaala uu sheegay ayuu u sheegay faqultu astaghfiruu rabbakum innahu kaana ghafaara yursil as-samaa calaykum midraara wayumdidkum biamwaalin wabaniina wayajcal lakum jannaatin wayajcal lakum anhaara. aayaddaas uu sheegay wey. yaa maanta inaga mida oo daartan adduunka joogo oo waxa weeye sidii uu rabay iyo sidii uu goocanayay noloshu u tahay.
yaan ka cabanayn nolol ku adag yaan ka cabanayn shaqo la'aan yaan ka cabanayn dhadhan la'aan ay noloshu u dhandhanto yaan ka cabanayn ubad caaq ku noqda yaan ka cabanayn waxa weeye oori iyo islaam ku xumaata yaan ka cabanayn cibaadada oo culays uu ka dareemayo yaan ka cabanayn warwar iyo warbahaar qalbigiisa iyo laabtiisa iyo maskaxdiisa iyo maankiisaba xoqaya yaan ka cabanayn qofaan ka cabanayn ma jiro ilaahay subxaanahu wa tacaala aan u toobad keenno waxaa laynaga weecinayaa waa istikfaarta iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala inaan toobad keenno waxaa ka mid a waxyaabaha laynagaga dulqaadayo waxyaabaha noocaas oo kale walaalayaal inaan ilaahay subxaanahu wa tacaala tukanno oo salaada uu ina faray ee sharcigu inaga rabo oo aan foorfoororsi keliya ahayn ee qalbiga laga tukado dadka qaybtood waxa weeye waxay ka tukadaan jidhka iyo xubnaha qaybtoodna qalbigay ka tukadaan meesha ilaahay isagu uu tixgelinayo ee uuna lagu xisaabtamanayo wax inugu siinayo ama aynu ku qadaynaa qalbigeenna weeye walaalayaal nabigu sal alla alay wasallam wuxuu leeyahay in allaha laa yanduru ilaa suwarikum walaa ilaa ajsaamikum walaakin yanduru ilaa quluubikum wa acmaalikum war ilaahay jidhkiinna iyo xubnihiinna iyo sida aad u taallaan midna fiirin maayo waxa qalbigiinna ku jira iimaan iyo wanaag iyo khushuuca yuunbaa ilaahay fiirinayaa iyo camalka aad samaynaysaan ee wanaag ah waxaa loo baahanyay salaadeennu inay saxanto nebiga sal alla alay wasalam kaana idaa xasabahu shayun sallaa wa fii riwaayatin fazaca ila asalaa nebiga haddii waxuun culaysi uu ku yimaado salaada ayuu u carari jiray wey salaada ayuu ku raaxaysan jiray wey duruufaha adduunka waxaa ilaahay nagaga faydayaa waa salaada waa talayna faray inaynu u kaalmaysanno waxa weeye duruufaha adduunka qofka ku imaanaya wastaciinuu bisabri wasalaa ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu leeyahay waxyaabaha loo baahan yahay waxaa ka mid a ee qofka waxa weeye ka faydaya dhibaatooyinka iyo kurabka haysta iyo waxa uu gocanayo inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala baryo oo waxa weeye uu ilaahay tuugo ilaahay wuxuu leeyahay amman yujiibu lmudara idaa dacaah wayakshifu suu'a wayajcalukum khulafaa alard a ilaahu maca allah waryaa alle ahayn oo qofka waxa weeye tabaalaysan dhibta haysata ka fayda oo baaqiisa iyo yeedhmadiisa maqla marka uu baryo aan ilaahay ka ahayn ilaahay subxana wa tacala ilaahay isagoo naxariis badan oo inoo tudha ayaa haddana marka aad danaysan tahay ee duruufuhu ku haystaan ilaahay subxaana wa tacaala waxa weeye ajiibidiisu waa kuu dhowdahay weeye meelkaa ma jirto weeyaan waa in ilaahay subxaana wa tacaala la baryo ilaahay gaalkiibuu ka aqbalay aan isagaba rumaysnayn ee khaaliqii abuuray ee arsaaqay waxa weeye dhagax iyo birqalax iyo sanam ka doortay ayaa baddu markii la caariday ee waxa weeye ay la kacday ee mawjadaheedu ku dhaceen markii ilaahay baryeen ilaahay baa badbaadiyey oo ajiibay weeye haddii gaal tabaalaysan oo waxa weeye allaba kelinimadiisa aan ogolayna birqalax iyo sanam ku dhinac wada haddii ilaahay uu aqbalay adiga muslima ee mu'mina ee tukanaya ee ilaahay aaminsan ee cibaadaysanaya maxaa kuu diiday walaal inaad ilaahay ula cararto wixii darahaaga iyo duruuftaada oo ilaahay subxaana wa tacaala aad u dhiibato maxaa kuu diiday gaar ahaan waxaa jira ducooyin gaara oo nebigu sal alla alay wasalam uu ina baray qofku marka uu tabaalaysan yahay ee kurbadu hayso ee dhibta uu dareemayo ee uu dhaxmoonayo uu akhrisan karo oo ilaahay subxaana wa tacaala uu ku faydayo waxaa ka mid a ducada muslim iyo bukhaari ku soo aroortay min xadiis ibni cabaas nebigu sal alla alay wasalam inuu akhrisan jiray laa ilaaha ila allah alxaliimu alcaliim rabu alcarshi alcadiim laa ilaaha ila allah rabu asamaawaati warabu alardi warabu alcarshi alkariim ducada ammaanta ah ee ilaahay awooddiisa iyo weynaantiisa muujinaysa ilaahay xaq lagu caabudaa ma jiro aan alla weyne ka ahayn allaha cilmiga badan ee dulqaadka badan allaha carshiga weyn iska leh allaha ciriya dhul iska leh allahaas waxa weeye in ducadaas alla ammaanka ah in la akhriyo weeyaan waxaa kaloo soo aroray jaamici tirmidi wakayrih waxa weeye min xadiisi sacd ibni abi waqaas nebigu sal alla alay wasalam inuu yidhi waxaan ogahay odhaah
qofi haduu yiraahdo tabaalaysani illa faraja Allah anhu ilaahay uu ka faydayo ayaan ogahay oo maxay tahay ducaa nabiillaah Yunus alayhi salaam markii doonta laga tuuray oo malaygu afka gashaday meesha mugdiga ah ee mugdigii caloosha malayga iyo mugdigii habeenkii iyo mugdigii badda korkeeda ah ciid waxa weeye aadamaho og oo aan la weyna ahayn aan jirin waa meel nolosha laga quusan karo qof waxa weeye malay calooshiisa galay halkaas ilaahay subhanahu wa ta'ala ku soo xasuustay fanaada fi dhulumaati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin ilaahi uu dhawaaqay wuxuu ku dhawaaqay inuu alla amaanay gabood falna naftiisa u qirtay oo u tiiriyay la ilaha illa anta subhanaka إذ حق لغو عابدو عن أذيك أهيني مجرت رسول إلهي إني كنت من الظالمين أنا أقول واقف دعادي هورنا وحي هيد الله أماني اللوينين دعادا مركا قفك وكد دعاي سنة وتبالي سيهي لباي سوق جرتا إن إلهي أودي سآد موجسود أمانته يينا النفط هذا تاقدر كذا يقبوت فالكذا يخلت كذا آد قرطوية waayo maxaa saas loo yeelaya waxa la wixii adiga ku soo food saara oo duruuf iyo dana adag ah fadima kasabat yadak oo waxa adigu gacmahaaga ku goosatay iskaana u shaqaysatay ilaahay cidna ma dulmiyo waxaani geeysanna waxa weeye guudka kama saaro ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay wama asaabakum min musibatin fabima kasabat aydikum warwixii musiibo oo dhiba hayraadeen haweynaadeen diintaada ha ka haleesho adduunkaaga ha ka haleesho ilmahaaga ha ka haleesho xaaskaaga ha ka haleesho hantidaada ha ka haleesho waxa la wixii dhibay ku haystee dareemayso fabima kasabat aydiikum oo waxa aad gacmihiisu geysateen hadana waa yacfu can katiir in badan buu ilaahay dhaafaya oo ka dulqaadanaya markaad rabto in dhibta laga dulqaado marka koobaad waa in waxa weeye gafkaaga ilaahay aad u qirato nabiillaah Yunus alayhi salaam inni kuntu min adh-dhalimin buu yiri ilaahay oo aniga ayaa gardarna wax weyna ma samayn ummadiisii oo muddo uu dhawaaqayay oo uu ka dhaxyeerayay markay ku gacan saydeen ee diideen ee waxa weeye gaalnimo ay iimaanka ka doorteen ayuu intuu ka xanaaqay ka dhaqaaqay oo dan uga baxay weey tiiba lagu canaantay oo la yiri iyadoo lagu amrin maxaad waxa weeye sida u yeeshay oo aad uga tagtay weey gaalax muxuu ka tagay oo aan ilaahay idan uga haysan ayuu xulay inni kuntu min adh-dhalimin aniga ayaa ilaahay oo gardarooday ilaahu ii dhaaf weey waa in ilaahay la amaano gardaradaadana la qiro iyo gabood falkaaga ali ibn abi talib wuxuu leeyahay walaalayaal hadal aad qiimo badan oo murti ah wuxuu leeyahay la yarjuwanna ahadukum illa rabbah ولا يخافن إلا ذنبه والمتكين يانو كبقين ذنبه سوحان هاي يانو نرجينو إذي الديلة يقود درعيني كجل اللوين عدان هاي وقاعدو قفك مسلم كيه وانو لشي صور دانكو صلايك ربيسو قديكر لا يخافن إلا ذنبه وح الله وح كوغي سنيا وح أبو تيسو دبت كوغي سنيا ميل كلمها كرهادا adigu dib isugu noqo dambi aadan gelin dib adduuniya mid aakhiratoona ku soo gaari maayaan hadaad caafimaad xumo ka cabanayso hadaad xoolo yaraan ka cabanayso hadaad warwar iyo warbahaar ka cabanayso hadii aadan nolosha ku haysan hadii isfahan waa ubadkaaga iyo islaantaada iyo saaxiibada iyo ummadii kugu xeernayd aad ka cabanayso waxa weeye aad naftaada ku noqo waxa naftaadu aanay ku geysan cidna ku geysanayso la yakhafanna illa dambigiisa waxaan ahayn ka bil wala yarjuwanna illa rabbah yaanu rajaya ili diila ka galin ilaahi ciidaha ilaahi baa qani ah ilaahi baa hodan ah ilaahi baa deeqsi ah ilaahi baa khazaa'in ad-dunya wal aakhirah gacanta ku haya ilaahi baa rahiim ah ilaahi uu rajeeyo ilaahi waxa weeye isaga uu dareeb oo ilaahay wax u doono inaga dhaqankeenu waxa weeye mar alla marka uu culaysku kugu yimaado waxa weeye waxa qalbigeena ku soo dhacaya wareerka yaa u maqnaa wardeyn baan galeeyaan la hadlaa waryaan waca
warheebelkii halkaa jiray lambarkiisa yahaya taas waa khalad waa fikrad aan fiicnayn marka koobaad waxa weeye goobta aad geynayso kiiskaaga iyo culayskaaga yaanu noqon waxa weeye cid kale aad aadiso salliga aad ku tukanayso iyo salaadaada ha noqdo markiiba qofka muuminka maxaa lagu yaqaanaa fafirru ila allah amarka ilaahay buu fartooma war ilaahay xaqiisa u carara culayska markuu dareemo waa weysaystaa oo ilaahay buu tukadaa oo ilaahay buu dhibta haysata ka dulqaataa ilaahay wuu kugu jeclaanaya inaad barido oo tuugto aadamuhuna way kugu nacayaan inaad barido waxaa la sheegay nin ganacsata oo hantiilo ah ayaa mid ay qaraabo yihiin waxa weeye xaaskii ay ka xanuunsanaysay oo fooshii ay ka haysay markaasuu xoogay xoola ah ayuu uga baahday markaasuu wuxuu yidhi lambarkii oo saylan ku jira ayuu muddo dhowr daqiiqo ah gudahood waxaan ugu imi 41 mukaalama 40 jeer oo uu soo wacay markaasaan waxaan niyadeyda ka idhi hadduu hal mar ilaahay subxaanahu wa tacaala hawsha u wacan lahaa mar keliya ayuu waxa weeye u ajiibi lahaa innaga aadamihii wadada fiican ee xalku ku jiro hadiya jeer ala waynu ka ilduufnaa waxaa ku gebagabayn lahaa qiso uu ka sheekeeyey asheekhu shanqiiti raximahullah xafidahullah wuxuu yidhi wiil yaroo dhallinyaro abaa ii yimi markaasuu wuxuu yidhi waa sacuudiga sheekhow nin weynoo caalim ahoo ummadda waxa weeye magac iyo maamuus kule baa tahay aniguna jaamacaddii baan dhammeeyo shahaadadii baan wataa shaqadoon iyo muruqmaalna waan ahay ii shafeeco ii ergey markaasuu wuxuu yidhi cala alra'si waalcayn hawraarsi iyo guddoon hawshaa waan kaa yeelay cid loo ergeeyo cidda ugu fiican ee ergadiisa aan la celin ayaan kaaga ergeynaya markaasuu wuxuu yidhi tow ma madaxweynaha ma waxa weeye ma wasiirada ma waxa weeye muxuu ahay toy gobolka ka haystaa markaasuu tegey habeenkii buu qiyaamuleyl tukaday ilaahay buu baryay inuu wiilkaas ilaahay subxaana wa tacaala shaqo xalaala oo adduunkiisa iyo aakhiradiisaba waxtar u ah inuu ilaahay siiyo aroortii dambe isku soo noqdeen wuxuu yidhi waa kuu ergeeyey jawaabtana insha allahu waad sugaysaa sheekhu yaad iga ergeysa ilaahay baan kaaga ergey wiilkii dhallinyaradaha wax kalaa ku sawirnaaye oo ku qafilnaa maskaxdiisa waxay ku noqotay qaadanwaa waxay ku noqotay lama filaan waxay ku noqotay kadiso iyo fajay ku noqotay dib buu istaagay ilaahayna subxaanahu wa tacaala ilaahay ergadiisu maxay taraysaana afka kama dhihi karo waa gaalnimo oo waa qof muslimo iimaan leh dib buu istaagay waa iska noqday maalinkii xigay qaatay waxa weeye waraaqihiisii oo markaasuu suuqii la galay shirkad buu geystay ninkan waxaa la arkay waxa weeye aqoontiisa iyo kartidiisa iyo raganimadiisa markaasaa ninkii guddoomiyaha shirkadda ka ahaa wuxuu yidhi aqoontaadaas aad baan ugu baahnahay waxbayna i taraysaa shaqaale keliya kaa dhigi maayo guddoomiyaha aniga i xiga ayaan kaa dhigaya markaasaa lacag aad u fiicanna lagu shaqaalaysiiyey weeyaan waa arrin yaroo adduunye ah oo ilaahay subxaana wa tacaala laga tuugay ayaa waxa weeye ilaahay saa subxaana wa tacaala uga soo jawaabay weeyaan waxaa la yaqaanaa shirkadaha waxaa lagu bilaabaa iyo shaqo kastaba shaqaalanimo muwadafnimo laakiin in xil iyo mansab lagu bilaabo waa arrin fowqulcaada ah waa arrin cajiib ah waa arrin waxa weeye sida caadada ah ka baxsan wey laakiin ilaahay subxaana wa tacaala isagu waxa uu rabo waxa weeye cidina ma hor istaagi karto alaa wasalluu wasallimuu calaa man amarakum allah bisalaati wasalaami calayhi xaysu qaal in allaha wamalaa'ikatahu yusalluuna cala alnabiy yaa ayuha aladiina aamanuu salluu calayhi wasallimuu tasliima allahuma salli wasallim wabaarik waancim cala nabiyina muxamed wacala aalihi wasaxbih وفي الختام أيها المسلمون إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقيموا الصلاة